الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي سقالية طبناد يا كتاب كأني تحفة المودود بأحكام المولود للإمام ابن القيم رحمه الله وأرمه الشيخ كما قعاب ابن القيم فصول نافعة في تربية الأولاد أرمه آدو أنفعايا ilmaha weliba yaryar oo bilaha ugu horeeya jira marka dadka hadda ilmo yaryar ama dhalaya ama u dhasheenow arrimahan la socda ayib waxa uu ka bilaabay sheekhu waa inay hooyadu aada iyo aada ihtimaam u siiso yacni inay aada iyo aada u danayso inay ilmaha nuujiso naaskeeda arrintaasi faa-iiday u leedahay iyada iyo ilmahaba waxaa kaloo sheekhu cabir inaan ilmaha markuu yaryahay bilaha ugu horeeya aan aada loola warwareegin innaga markuu ooyo intii la qaadaa la ruxruxaayo meelaha inaan la ruxruxin oo lala wareegin oo aada loo dhaqaajinin maxaa jira waa liducfi badanihi ilmuhu jirhkiisu waa jir daciif ah wa tariyu cidaami xubnihiisuna waa jilcan yihiin marka sidaas daraadeed dhib baa soo gaari kara waa inuu qofku markuu ilmuhu aadka u yaryaa laga walwalo laga fikiro jiifkooda meesha la dhigayo nafteedu inay hagaagsan tahay inay simin tahay ilaa 3 bilood uu ilmuhu ka gaadhaa la yidhaahdaa waxaa habboon in lagu gaabsado naaska ilmaha la nuujinayo oo aan lagula degdegin cunto la siiyo ilaa ilmuhu ilka uu ka yeesho sidaas ayaa la leeyahy waxaa kale oo muhiima in nuujinta naasku ay sii socoto ilaa 2 sano laga gaadho waana laga badin karaa waana laga yareyn karaa waa aayadii qur-aankeed walwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima aradaaca haddaba labada waalid hadday doonaan inay ilmaha cunto siiyaan isagoo yar in tartiib loo siiyo oon wax weyn hal mar lagu kedinin ayaa habboon weliba lagu bilaabayo cuntada fudud oo jilcan na lagu bilaabayo haddii ilmuhu hadal uu gaadho waxaa habboon inay labada waalid u laqinaan waa in loo sheego hadallada fiican in loo sheego weliba towxiidka ilaahay aadaanka faatixada iyo suuradaha yaryarkaa qulwalli iyo sidii loo bari lahaa ilmaha yar intaa lagu ababiyo ayaa habboon waxaa habboon labada waalid ilmaha oohintiisa inayna dhibsan bal u fiirso masalada inagu markuu ilmuhu ooyaba waa lala boodaa oo waa la qaadaa marka ilmuhu hadduu ooyo inaan la dhibsanin qayladiisa iyo oohintiisa laguna degdegin qaadidiisa maxaa jira wuxuu leeyahay wuxuu caadaysanayaa in uu la qaado mar walba isaguna marka uu ooyayaa bisababin oo biduuni sabab ama sabab ha jirta ama ayna jirine wuxuu isku dayay inuu ooyo si baahidiisa wuxuu rabo loo dhammaystiro oohinta waxyaaba badan baa keena juuc baa keenaya gaajo waxaa keena inuu ilmuhu u baahan yahay tandiif yani waxyaabahan dheebarkii laga bedeliyo inuu u baahan yahay baa suuragala marka inuu hurdaysan yahay baa suuragala waxaa kaloo habboon in laga ilaaliyo ilmaha wax argagixiya bal u fiirso inagu mararka qaar waa laskaga qayliya caruurta hadal adag baa lagu yidhaahdaa waxyaaba uu ka naxa la tusaa marka waxyaabaha in laga ilaaliyo xitaa hadduu dhaco isagoo yar ilmihii waxyaaba noocaasa haddii uu ku dhaco uu qayliyo in ilmihii intii laabta lasoo geliyo la aamusiiyo laysku dayo in waxaa la ilowsiiyo si ayna daakiradiisa iyo maskaxdiisa waxaasi ayna u qabatinimin haddii arrintaasi waxaa la yidhaha kusoo laablaabato oo mar walba ilmaha laga nixiyo oo laga oohiyo waxaa dhici karta inuu ilmaha arrintaasi arrin ay la qabsado maskaxdiisa ku qoranto weligiina aad ku aragto argagaxa hal mar inuu saa u boodo ama ilmo fulay ah uu noqdo yani dad waaweyn waxaa jira markay wax yar ka naxaanba boodaya oo hal mar sa usoo cararaya oo kale haddaba wuxuu leeyahay oo kale ibnulqayim iska ilaali inaad ilmuhu wax uu rabo u diido hadduu rabo inuu hunqaacada ha ku celinin hadduu rabo inuu hurdo hayso ha u diidin dadka qaar baa leeyahay ilmaha hurdada ha laga yara celiyo dhowaan si uu u seexdo muddo ha laga wareejiyo isagoo ooya maanta laga celiyo marka ha ka celinin cunto hadduu rabo ha ka celinin sharaab iyo cabitaan ha ka celinin inuu hindhisooda ha ka celinin inay kaadi hadduu rabo inuu kaadi ha ka celinin wax alla wixii noocaasoo ka imanaya ha ka celinin maxaa jira
arinta xabsigeeda iyo ku celinteeda cawaaqib radii'a fi xaqi طifli walkabiir, yani qofka yar iyo qofka weynba umuurahan haddii lagu celiyo dhibaata. qofka weyn naftiisa hadduu kaadida hadda matalan muddo ruuxii isku celiya ama lagu celiyo ma aha caafimaad. dhakhaatiirtu taa way kugula talinayaan kaadi hadday ku qabato inuusan qofku isku celinin oo uusan waqti dheer holdhigaraynin, inuusan haynin. marka arrimahaasoo dhan waa arrimo ilmaha yar insha allahu tacaala anfacaya. wallahu aclam.